السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وقاسم محمد علي. وحنا أرضي وحكبر في جامعة مقرد University College London UCL. وحنا برتا مادة جيولوجيا أما specific أدرسياتنا petroleum geology. مقعي وحالي هذا محمد إبراهيم عبدي محمد ديق مقعده وحن كمل هاي أرضي الصومالية وحكبر في تلك مصر وحن دياريا PhD تخصص تاريخ الصومالية. مقعي وحالي هذا عبد الله معلمتي وحن كمل هاي أرضي من دول تلك مصر وحن كبحي جامعة الأزهر قيبتها كلية تجارة كوميرس يقانو قيبتها أكاونتينج كبحي سنة كمدة waxaa la yiraahdaa Shariif Ibrahim Abdurrahman Ibrahim waxaana ahay arday Soomaaliyeed ee wax ka dhigta jaamacadda Al-Azhar waxaana dhigtaa sanadkii labaad ee xilliga saxaafadda. وحسن محمد علي آدم وحنا كسر جامعة مقدشو كلية التربية قسم علوم اجتماعية وسوشيال ساينس حضرنا وحنا اجتماعات الغرب والدراسات العربية قيمة سوشيال ساينس. وعلي عبد الرحمن وحنا ahay arday Soomaaliyeed oo wax ka bartay Masar kana qalin jabiyay jaamacadda 6 October وقتي علمي كمبيوتر ساينس. مقعي هو داود هاشم وحن كبحي جامعة الأزهر كلية اللغة العربية قيمة 40 تقدر وحن دياريا مستر بكري ومدينة صنطة. faraxsanahay in aan dalkayga iyo dadkayga oo aan wax badan dadkooda wax ka qorin inaan ogaado oo wax badan ka ogaado waxaana jeclahay in aan cilmigaygaas iyo aqoontayda dadkayga uga faa'iideeyo in dadka saxaafadda sida badan u isticmaalo المجتمع مصاب العلم وشغلنا كذا ويعطينا عسال وتخصص نستطيع أن نسجل آلة في الصومالية xalkeeda saxda inuu ku jiro in uu la eg yahay tirada dadka waxtarka ku noqda intay leeyihiin markastoo ay badnaadaan waxay soo dhawaanaya xalkii Soomaaliya markastoo laga daahana waxaa dib u sii dhacaya xalkii Soomaaliya mushkilada Soomaaliya ku laabto dadkii haddii lagu guuleysto taas waxay noqonaysaa in Soomaaliya xalkeeda uu soo degdego oo dadka aqoonta la iskaashadaan oo dadaalkooda la isku biiriyo wax weyn waxaan aaminsanahay inay wax weyn qaban karaan waxa haddii ay jaamacadaha dalka laga sameeyay iyo dad iyaga gooni u socda haddii wax weyn sameeyeen haddii la isu tagana in isbedel waqti gaaban lagu sameyn karo oo wax weyn dalkii laga bedelay oo carruur badan maskax badan oo qaali ah oo maanta aan waxbarasho helaynin in la badbaadin karo.